السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي بعد بين السلام يا أصحاب تقاليقة وأنيقة إيه مركلة إيه برنامج كيني ideas for a better future. برنامج كان وأنا هنشارك هذا الله مربى وحبها أينو أرنو إني واحد يعني ذلك نافعية ومش نافعية سيبر اللي هي نافعية. أما قصية ذلكني يعكس هذا ذلكني من الله هاي كما هذا يو مت سياسة وحقا للوكا أي دقنو أنت نقاش شخص سوماليا هنقطة سوماليا هنقطة سوماليا هنقطة ملها كله جبوت هنقطة مركا مربى واحد على استعين كهذا موضوع يعني ماركو إني هاي موضوع سكر ريب برشلونة إن هالضبط ما أنت واحد ربا إن الواحد كتابته أرير أو أن قاركي إن تي ده أن قاركي ما أنت تي سومالي ده أرنتاس أو قبض عطانا مريكنا ملك هذليسي أو شيء جيسي إن أي دولة سوماليا أو قلاتي إن أي كنيستي كاثوليكا هيد كل شيء هرجيزة إنكسو أنا هيك كنيسة الله يغنيه طبعا أي واحد أصلا هيد كنيستي إن الله قلاتي إن فران دول سان تاس وأنا طبعا بناني أنا جالس دونين حصية شيء أنا waxaa iga sii badan yani in ay goob cibaado furtaan aniga sidaa lama sii yaabani aad looguma soo horjeedo waayo dad badan oo waxa diimaha aaminsan bedelkeeda qurbaha dadku waxay ku helaan xorriyad ay diintooda ku caabudaan marka haddii aynu xag ku caadino xag aynu caadinayaan waana adag tahay in si ay dadkeena dabcan diintooda ugu daraanaya ay u soo gaalaysiiyaan halka inaga ay fudahay dad badan inay diintooda ka yimaadaan ay tahayna soo galaan marka qurbaha tagaan marka yani mucaadalada markaad isu eegtid aad isu shubtid waxaad moodaa inay muxuu ahaa aanay dhib badan inay loo geysto nin kastoo dabcan dee laga yaabo inay dadku yani ku lumaan haddaba arrinta aan diiday waxay tahay aan yani meesha aan qaban waxa weeyaan gabadhu hadalkeeda waxay ku dartay in ay cusbitaal uga shaqeyso qaab volunteer يعني متدوع نمو إنه وش قصة عسطل سمعنا في هذا تذكر كنيستها كصعدة أما بقى مش نرسله وحبها أي حرف كي يمتغنى أي آد وش قصتان تذكرنا أي شانس كبرتوه في عنا تذكر أكتان تذكر شيء واحد سميان واحد أكتان تذ شلعسن مد فقر هيو مد حنون هيو مد دين ولي هاي مد يعني أدو واحد أكتن قف محوها إن قرض قلي وهالس كتيرة وعبصنا يدوني يعد بادسة أنت بدل واحد صار عن مالية وأي قف قصيان هدوي هاي مد نقالوا بها فقيرة إيه هدوي هاي مد محوها إن قف ده إسكت شلعت واحد شيء بدل نقالة عن هاي سنين لكن دين تو أقطعي وأنا عدل واحد يلكرم kuwaasoo kale kama hadlaya waxa ka hadlaya dad baa jira diintooduna iska jecel tahay faqrina hayo ay easy tahay in laga faa'iideysto oo yani cid ka soo ajenda lehba ajendadeeda ka fushado haddaba waxyaabaha yani waxyaabaha ugu waaweyn ee ay adeegsadaan kaniisadaha adeegsadaan waxaa ka mid ah in ay eegtaan cusbitaal ka shaqeeyaan qof baa xanuunsanaya xaalad wuxuu iskaga jiraa desperate ilaahay og yahay qofkaas ayay u imanayaan qofku waxa laga yaabaa xanuunka ay yahay xanuun yaroo easy oo la daweyn karo dabeedna way u imanayaan way daweynayaan qofkaas waxay u sheegayaan ay hal jeer ay ku celinayaan iyagoo dee dawadiina u wada inay ciise u bariyeen inuu ciise daweeyay inuu ciise yiri waxyaabaha adeegsan bay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a yani waxyaabaha adeegsadaan qof jilicsan oo aad u tamar daran oo sakaraada qofka naxariis badan u muujiya ee halka dadka kale ka yara qashaafeen magarasa xaalkiisa haddii xataa daweynayaan kuwani way isdul dhigayaan isdul dhig ay samaynayaan
sida awgeed nimankani kaartooyinka adeegsadaan wax ka mid ah in qofka jilicsan ee xanuunsanaya sida lagu galo oo inta la sicyo la soo dhigo dabeetana muxuu ahaa lamsa cala maxamed sida diintiisa laga fidmeeyo la isku dayo bal in muxuu ahaa diinta laga saaro waa laga yaabaa in dhacdo xaaladaha qaar laakiin dabcan dadka badankooda way diidayaan oo dadka badankooda ma aha dad sidaa yar fudud diintooda laga bedeli karayo ma aha marka waxyaabaha yacni aan dowladda somaliland ku diiday wax ka mid ah kow marka hore inay yani u ogolaato ma ahaanba dee waxaan ogolaato yani maan jeclaysanin inkastoo aanan hadday dhacday aanan yani wax culus aanay lahayn oo dee qurbahaba de inagu aynu xaq u lenahay inaynu cibaadaysano haddana yani markaan saa leeyahay waxaan ka wadaa dad inay dad inaga ahi soo galaan ma aha oo ay karis galaan ma aha dad baa jira fara badan meesha jooga waxaa jooga ethiopia baa jooga waxaa jooga caddaan waxaa jooga kenyati waxaa jooga baybas yani diidooda aaminsan oo dee hay-adaha ka shaqeeya kaniisadu meesha ku taala la sheegaan waa meesha hay-aduhu badan yihin marka waxaan ka wada sheegada ka wadaa allahuma salli ala maxamed waxa qaladku uu yahay in loo ogolaado in iyada oo la og yahay in ay diin u socoto dadkan inay diin u socdaan oo hadafkoodu cad yahay in haddana loo ogolaado inay goobaha noocaas xasaasiga ah ay galaan oo meel ay dadka ka ugaarsan karaan loo ogolaado inay galaan waa arrin aad iyo aad u foolxun waa arrin qaldan waa arrin yacni qof kasta oo muslim ah iyo qof kasta oo muwaadin ah ay tahay inuu ka damqado arrintaas waa arrin aan la qaadan karin weeyaan runtii waxaan u sheegayaa nimanka dowladda haysta ee dabcan waxaan fahansanahay waxay iyaguba igama din yara oo igama islaamnimo yara inagama muxuu ahaa inagama garasho yara waxa u geeyey waa wax la dhahdo xaqulqalin waxaa somaliland hadda ka shaqeyn la dhahdo xaqun la dhahdo waa dabcan lacag baa la siinaya waxa la odhanaya muxuu ahaa maal yani waxbaan ku caawinna wadooyin iyo balabala iyo sheeko inkastoo waddo aan dhisayn lacagta la garanay meesha marayso marka waxyaabaha noocaas oo kale ah ayaa yani waxaan filaya lagu gelayaa marka waxaan u sheegayaa nimanka waxaa sameeyey at least haddii aad dadkan u ogolaateen kaniisadan la sheegaya inay dib furtaan oo ay dib habaystaan waxaan uga digayaa in aanay dadka noocaas u ogolaanin goobaha noocaas oo kale ah ee xasaasiga ah ee dadkan diintooda lagaga duuli karayo dadkani waa dad jilicsan waa dad tamar daran waa dad u baahan cid garab qabata cid alla ciddii garab qabatana qalbigooda wuu jilicsan yahay waa dad laga yaaba inay miyi ka yimaadeen oo iska inkastoo ay miyigu ay diinta ku adagiinba haddana qof iska faqiirahoo dulmanoo dhibbanoo markiis horeba tabcaana oo intuu xanuunsaday qof uu naxariis u sheegtay oo qof isoo dhaweeyey qofkaasoo kale halis ku jiraa haddii dadkaasi ay gaaloobaan haddii dadkaasi diintooda ay tashush gasho ilaahay hortiisa waxaa ka mas-uul ah nimanka sheeganaya siyaasiyiinta ee muxuu ahaa u ogolaaday inay dadka noocani waxyaabaha noocana ku kacaan arrintaasi aad bay u falxun tahay arrintaa waxaan uga digayaa nimanka kursiga haysta nimanka dowladda haysta arrintaa waxaan uga digayaa in ay ka hortagaan yani waxaan u sheegaya yani arrintaa inay ka hortagaan uga digaya maaha waxaan ugu digayaa inay arrintaa ka hortagaan waayo haddaanay ka hortagin dad badan ayaa iyaga amarka ay bixiyeen iyo ogolaanshaha ay bixiyeen dad baa ku soconaya dadkaasna ilaahay u weydiinaya ilaahay intaanu subxana watacaala aanu arrintaa idinku qabsanin idinka ayaa ka mas-uula arrinta wax ka qabtaan leeyahay waxaa la hadlayaa mas-uulda somaliland waxaa la hadlayaa cidda ogolaanshaha siisay wasaaradda diinta aqaafta xumeeda xay ku maaqantay miyay hurdaa hadday taasi dhacdayba oo kaniisadan muxuu ahaa waxaan loo ogolaaday maxay ku dhacday in dadkan loo ogolaado in ay galaan goobo sidaas u ah xasaasi goobo sidaa muhiim u ah yacni arrintaas waa arrin aad u xun weyn runtii aad baan uga damqaday maantaan arkay anigu hore maan ogeyn goorta xataa videoga la duubay ma garanayo wuxuu ku jiraa hon cable ayaa soo geliyey anigu yacni websitekoodana kuma arag meelka kuma arag waxaan ku arkay facebooka ayay dhex wareegaysaa waxa saaran calaamadii facebooka saaran waxaan jeedaa calaamadii hon cable saaran ama dee yani loogada yeelay dee magarasa ay kaga tageen wariyaha soo hormeeday dabcan waa hon cable
arrintaa bal dhammaantiin ba eega cid alla ciddii awooday in dowladda la xidhiidha arrinta gaadhsiisana arrintaa ha gaadhsiiso arrintaasi waa arrin aad iyo aad u foolxun aad ba mahadsantihiin waana salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah pagekaygan muxuu ahaa yani channelka fadlan subscribe dhaha xagga hoose oo muxuu ahaa commentkiina ka bixiya oo wixii fikrad ah haysaan igu dara like aad baan salaamaya dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo mar kale video kale